الحمد لله waxaan galabta insha Allah ta'ala aan doonayaa inaan u diro fariin qoladan jaahiliyiinta ku nool qurbaha jaaliyad bay yiraahdaan laakiin waa jaahiliin weey waxay jaahiliin ku yihiin waa dad aad moodo dadka reer ciilaf weyn ee dhimanaya nooc kastaba ha u dhintaane dadka magaca hore lahaa ee habar lamaan marka ay iyaku ka qayb qaateen ololihii ugu weynaa la isku dilay horena la isugu dilay haddana la isku dilay oo gabayo iyo fiiriya la soo fadhiisto oo la isugu jawaabo wixii dilku ka dhacay iyo wixii uu ku dhacayba caruurahoodii iyo islaamahoodiina biil baa la siiyaayo waxay ku raaxaysanayaan America darafyada caalamka oo dhan ayay ku raaxaysanayaan waxna kama dhiman caruurtoodina ma dhiman islaamahoodina ma dhiman iyakina ma dhiman waxa dhimanaya walaalkii ayayadii iyo abtigii markaasaad qiirada moodaysaa markay soo fadhiyaan media markay soo fadhiyaan in iyaga mooye cid kale oo wax fahmaysa ama wax garanaysa inaanay ka sii dartay inamadan jaahiliinta ah ee jooga dibadda waxay sameeyeen waxay ku soo isugu faanayaan oo leeyihiin mar haddii intaa la idinka dilay caawan seexanaya iyo guubaabo hor leh ayay wadaan dadka qurba waxay wadaan iminka hadda guubaabadii ugu ballaadhnayd ee ugu weynayd bay wadaan kama kacdadii ugu weynayd bay hadda wadaan oo olole ku wadaan oo la isugu hanjabayaa oo la isugu la isugu faanaya taana dawladdu inay wax ka qabataa wanaagsan waayo hadduu waxay shidayaan dabkii lagu hoobanayay bay shidayaan dabkii cadaabkay shidayaan darxumay u yeedhanayaan darxumay gacanta gelinayaan waxay noqdeen dad daalimiina oo aan ka dhergayn dhiigga waxay noqdeen dhiig yacab waxay go'deen kuwa ilaahay ka go'ay bay noqdeen kuwa aan hanuunka ilaahay qaadanayn bay noqdeen dad aan ilaahay u hoggaansamayn bay noqdeen darxumo iyo dufku baxo ayay ka shaqaynayaan dhaqaale xaaraana bay ururinayaan waxay bixinayaan taakulo ilaahay aanu raalli ka ahayn waxaan ku gabagabeynayaa ilaahay ka baqa oo lacagtiina bixinina oo ha ka isugu geynina hooyada iyo habaryarta iyo abtiga iyo inankaaga ha isugu dhiibin ha isugu bixinin ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala war waxaan aad wadaan ilaahayna waa idinkala xisaabtamaya bini aadankuna wayna ku arkaa idinkuna waxaad ka tihiin hormuudka ugu horeeya ayaad ka tihiin jaaliyadda qolyahan jaaliyaddan la hadlaya qolo kastaba ha ahaado qolo kastaba ha noqoto xaqiiqadu sidaa weeye waxaanu leenahay ilaahay ka baqa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa aad gacanta kula jirtaan ma habboona ee ka hadha haddii aad garanaysaan haddii aydnaan garanayna waa annagaa idiin sheegnay waxaan kula talinayaa hadday tala qaadanayaan qolada jaahiliyiinta waxay jaahil ka yihiin oo ay jaahil ku noqdeen wixii nebigu yidhi sallallahu alayhi wasallam alayhi salaatu wasalaam oo nebigu tilmaamay oo caayay weli nebigu wuxuu yidhi man badaa camalahu lam yusric nasaba ninka nasabkiisa qofka bini aadanka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuurtay waxa uu ka dhowrsadaa gacmihiisa inuu dhiig geliyo nebiguna wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam nebigu wuxuu tilmaamo oo yidhi
ما يدين تصيا قفك آمن كأما يدين تصيا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم مركولي هي لا يظلموا قفنا يا قفت المين أخو المسلم وقفك كلا وولالكي تاسي لدق على ما يعني يكو أخو المسلم walaalku walaalkii weeye kaasay la dagaalamayaan waxay leeyihiin wax walaalaahin ma jiraan wax abtiina ma jiro wax ayeeyahina ma jirto wax maxay tahay riximina ma jiro wax sodogina ma jiro bay leeyihiin ee madaxa laga guro maqaxiibaanu fariisan kari weyn London baanu fariisan kari weyn Sacuudigaanu fariisan kari weyn waxa sameeyeen sida leedin ka adkaaday ayay leeyihiin waa olole cad oo lacagta ana haya maxaa ku baxaya waxa qoriga maxaa ku baxaya imisa la siisanaya bardaloolku waa imisa suuqu waa imisa shiiku waa imisa sidaas ay ku caan bixeen inay waliba afkana ula soo dhaadhacaan oo yiraahaan maxay waad ka adkaateen maanta maxaa idinka maqan maqaxiibaanu fadhiisan kari weyn marka hore ilaa xalay baan wax cunay ilaa shalay baan quraacday ayay leeyihiin waruxu waa maxay miyaanay dad islaam ahayn waxay ku raaxaysanayaan markii intaa la dilay ayaan quraacda bal horta kuwani halkay ka kala celin lahaayeen iyo halkay ka kala waabin lahaayeen iyo halkay isaga keeni lahaayeen iyo halkay magaranaysaa cidda khaldan ay wax u sheegi lahaayeen ila iyaga indhaw ummad dadkani waa dad reedmi oo isku dhacay waa gartood markay isku dhaceen ma waxa weeyaan in loo soo uliya ka baqaato qof jaahila oo waxa laala wuxuu ka garanayo wax barasho oo aanu diin waxba ka garanayn oo aanu waxba ka garanayn hooyo iyo habaryar iyo ayeeyo iyo sodog aanu mid ka garanayn oo gowracayo waxaan kula talinayaa wixii Ilaahay iyo Nabi Maxamed kula taliyeen dadka muslimiinta oo ya ayuha alladina aamanu taqullaha haqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun hadimanina Ilaahay ka baqo hadimanina idinka muslimiina mooyee muslimiin bay sheeganayaan Ilaahayna wuxuu leeyahay war sida yeela oo Ilaahay ka baqo oo hadimanina idinka muslimiina de maxaa muslimiina dhiigii bay gacanta geliyeen koow riximkii bay gooyeen laba awowgood iyo habaryarto abtigood bay dileen oo dhulka yaala oo waxay dileen ciyaalkii bay laayeen oo iyagu waxba dagaal u haystaan waa dagaal bay u haystaan la yaab ma leh waa jaahil waxaan kula talinayaa jaaliyada meelkiistay joogtoba labada dhinacba noocu yahayba waxaanu kula talinaynaa walaalayaal ilaahay ha laga boqo